weerarka koowaad xalay ayay mujaahidiintu waxay la eegteen maleeshiyad murtadiina waxayna qaadeen mujaahidiinta weerarkaas xalay 7 saac gelinkii dambe oo xalay goob isbaara ay murtadiintu isbaara u taal dadka ay ku dhibaayeen oo loo yaqaan muqiga afkooyi oo magaalada afkooyi ka tirsan ayay weerareen halka waxay ku dileen 3 maleeshiyadka murtadiinta kamida 4 gaarina goobtii ayay uga carareen wixii haray oo maleeshiyadka goobtiina waxa la wareegay mujaahidiinta ayaa la wareegay saddex askari oo dhimashada iyo waxayna ka heleen 4 gaari mujaahidiintu kaba aysan harina waxay ku roondeeyeen magaaladii oo waxa weeyaan ay si fiican u dhexmareen kadibna mujaahidiintu ayagoo nabad qaba ayay halka isaga soo baxeen gaadiidkiina waxay qaadan kareen soo qaatay markii ay mujaahidiintu soo baxeen oo saaka waagu bariyay maleeshiyadku waxay abaabuleen ciidan raacada oo dabagala mujaahidiintii dhaqaaqooda waa la socdeen maleeshiyadkaas afkooda ayay ka soo dhaqaaqeen mujaahidiintu oo u diyaarsanaa kamiin ayay u galeen meesha loo yaqaan Godofari meesha la yiraahdo ayay u galeen ama Godofar markii ay meesha ku soo dhaceen ayagoo wali kolonyo ah oo dareen qabin mujaahidiintu korbay u sii rasaas culus bayna huuyeen hal gaari ah oo Cabdibilaa iyo wixii saaraa meeshaas ay ku dabiyo dambas beeleen meeshaas dambe dagaalkii ka dhacay mujaahidiintu guul xoog leh ka gaareen gaarigaasna way ku gubeen wixii saaraa ay laayeen wixii kale tan waa ay kala farxadeen oo dib ayay ugu noqdeen meesha ay ka yimaadeen afkooda ka soo baxeen khasaarahooda markaan ururinay intaan aragno indhaha saarnay dagaalka dambe Godofar ka dhacay 15 askari ayaa meesha ku dhimatay waxaana ku jira 15 kooda laga sargaal baa ku jira 8 qorana mujaahidiinta meesha ay ka qanimaysteen 2 qor ay beekaayo 6 ay yihiin qoryaha akeega loo yaqaan inta waxaan dheernay jabeen oo dib u noqdeen dagaalkaas Godofar ka dhacay oo duleedka afkooya mujaahidiinta hal wiil ayaa uga sheegay rahmatullahi alayhi wa lana rahmatan wasi'a wa lil mujaahido oo geesiyo waxa qodira oo diintiisa taafacanayo diiday daalnimada iyo dimuqraadiyadda iyo waxa maarta waxa weeyaan loo ordaayo oo dalkiisa iyo diintiisa daafacanayo ilaahay jannadiisa ka waraabiyaan leenahay kii hore ay xalay mujaahidiinta ay ku qaadeen meesha la afkooyo oo 3 askari ku direen xukuma gaarin mujaahidiinta suuqeynta khasaarada marka la soo ururiyo 3 askari oo lagu dilay isbaaradii meesha u taalo muqiga iyo 15 Godofar lagu dilay ama Godofar waxa tiraahdo dhimashada waxay isku noqotay 18 laba sargaal baa ku jira oo bastoolada meesha laga soo qaaday